Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba ku soo dhowaada sheeko ka mid a sheeko libaaxyadii aan halkan idinkala socodsiin jiray. Sheekaduna waa sheeko ka mid a sheekooyinkeenii goormay kugu darnay ee aad libaax fooda istartaan. Qarnigan soo dhaafnay ama qarnigan aan ku jirno horraantiisii Soomaalida iyo libaaxa waxaa soo kala maray qisooyin aad u xiiso badan iyo qaar naxdin badanba. Mid ka mid a oo ku saabsan nin geel jira iyo laba wiil oo adeer u yahay iyo libaax amba boqorka kaynta. waa qisas oo kala dhex martay marka hore channelka subscribe saar oo ku soo biir oo ka mid noqo qofka ugu horeeya ee uu soo gaadho muuqaalada amba sheekooyinka la soo geliya. waanad mahadsantihiin dhammaantiin cirooliyo carruurba ku soo dhowaada sheekada. waxa uu yidhi waxaan ahaan jiray nin geel jira ah beri baryaha ka mid a ayaan geelii xergeeyey. geela waxaa ila jiray laba wiil oo aad u da'yar oo aan adeer u ahaa oo geela loo soo raaciyey inay caana ka cabbaan laakiin aan loo soo raacin inay wax taraan maadaamay aad u da'yaraayeen. haddaba maalin maalmaha ka mid a ayuu geelii guuray ama geedigalay. habeenkii ayaan meel cidla ah ku xaraynay oo ah meelihii dhulka Soomaalida libaaxu joogi jiray amba uu ku badnaa. waxa uu yidhi markaan geelii xareeyey ee aan meel arda ah fadhino aniga iyo labadii wiil ayaa waxa muska iska soo shubay bahal libaaxa amba boqorkii kaynta. neef geela ayuu dusha iskaga raray. sidaa markuu u fuulay neefkii ayaa waxaan sitay qorigii xabadda ahaa ee la odhan jiray rayfalka oo ahaa qori marmar dhaca midba marka la cabbeeyo marka la rido la cabbeeyo oo aan ahayn qoryahan casriga ah imika iyagu xabadda isku gura ee sida darandooriga u dhaca intaa doontana ka ridi karto. ee qorigan wuxuu ahaa qori midhmidh u dhaca marka mid ridana la cabbaynayo. qorigii ayaan soo rogtay oo qoriguna waa ii cabbaysnaa oo diyaar ayuu ahaa. waxaan ku dadaalayaa inaan midhka u horraysa ee xabadda ah meel halisa kaga dhuftay libaaxa sida dhuunta wadnaha iyo wixii la mida. waayo haddii aanan meel halisa kala helin waxaa khatar ku jira aniga iyo labada wiil oo bahalku istifaac ayuu gelayaa. wuxuu yidhi midhkii u horraysay ee xabaddaha ayaan qac ku siiyey. waxaa nasiib wanaag kaga dhuftay feedhaha. xabaddii dhanna umay dhaafin. feedhihiisa mid ka mida ayay isku qotamisay amba ay isku taagtay. naqaska ayaana ku dhegay libaaxii. labadii wiil maan dareensiin in libaaxna soo weeraray oo ardaagii ayay iska fadhiyaan amba aan kaga imid si ayna u cabsan ayaan ka qariyey libaaxa. xabaddanbana kumaan ridin libaaxa. naftiina kamay bixin ee uu sakaraadaya amba halkan ayuu jibaadayaa. ilaa habeenkii oo dhan ayuu jibaadayey. ardaagii ayaan iskaga tagnay. kuwii yaryaraana waan seexiyey. kolba habeenkii oo dhan ayay igu lahaayeen adeero maxaa guuxaya markay maqlaan jibaadka libaaxa. anna waxaan ku lahaa adeere awrkeenna geela ku jira ayaa guuxayee iska seexda. waayo libaaxa magaciisa ayaa cabsi ahaa oo kuwa yaryar waxaan ka baqay haddii aan dareensiiyey inay habeenkaa ii seexan waayaan. libaaxii giddi habeenkii halkii ayuu jibaadayay amba uu sakaraadayay. aroortiina waxaannu ka guurnay isagoo sidii u jibaadaya naftuna aanay ka bixin. geelaygii ayaan feedha ka raacay oo aan xeradii ka dareeriyey. libaaxiina waxaa lay sheegay inuu baryo damba meelihii iskaga naf baxay. kuwii yaryaraana aroortii ambaan ku idhi libaax ayaynu dilnay oo halkan yaallee sakaraadaya miyaad aragteen. markuu waagii baryey si ayna iiga nixin ayaan xalay oo dhan ka qarinayay. sheekadanna waxay ahayd sheeko ka mid a sheekooyinkeenni ay ugu magac darnay goormay kugu darnayd ee aad libaax la kulanto. adiga laftaada weligaa libaax ma aragtay si layfa moo aragtay mid tv-ga socdo mooyaane ma kaa hor yimid. maxaad samayn lahay haddaad libaax meel cidlaa iskaga soo horbaxdeen. dhammaantiinba waad salaamantihiin. channelka ku soo biir oo subscribe saar muuqaalkana like isagana sii saar. dhammaantiin dhallinyaro iyo cirooliyo carruurba waad mahadsantihiin.